magaalada maarta wallahi saak sawsoo kale 12 hadana waxa la shaqada waxa la isku siiyaa qabiil maxay tiri shaqada qabiil lagu siiyaa qabiil la isku siiyaa waa garab la isku siiyaa qabiilina qabiil waxa dhaa maarta ilaahay ka baqaan waxaan qabiil faa'iido ma lahan ay iska daayaan vipi bro mimi niko poa tuko Isili hapa ukiangalia hapa ndo hii msikiti Al-Hidayah stage tule man vijana wala siku zote السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داودياشا قيمها يقدرنتا inaga mudan meel walba aad caalamka ka joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak Ramadaan Kariim hadda waxaan ku suganahay 11 Street waxaan rabaa inaan gaaro ama muuqaal aad u qurux badan ama vlog aad u qurux badan inaan idinkaga soo gudbiyo suuqa weyn ee Isli insha Allah waxaan rabaa inaan tago ilaa iyo Jam Street Ramadan Mubarak Golly Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran defense in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة واتاي أصحابتا هذا waxaan mareynaa 10 Street aan mareynaa marka halkan waxa igu weheliya kaamirada magacaaga waxa la Cabdishakuur Allah reer Nairobi ma tahay mama Nairobi ana xakiimada Uganda Kampala nolosha Kampala iyo nolosha magaalada Nairobi farqiga u dhaxay maxay tahay wallahi nolosha Kampala fiican horta Kampala de Soomaaliyeed maarto Kampala kullu Kisenyi hadee ku garanaynin xataa maarto meel asixatid waa helay laakiin meeshana meel madax dhigatida abarta dhigatay walaa ma helays soo dhaweynta yaani xagan kuma fiicna leedamiya wallahi meesha maarto muu soo dhaweynaa hadana maarto yaani qof garanaysid xataa salaanta ilaahay ka qaada salaamu calaykum hadda ku dhaad ma ka jawaabayaan way sii soconayaan inay bin aadan kale ku maleynayaan maxay madaraawi qaban maxay tiri madaraawi maxaa lu jeedaa yaani way ku yeesayaan salaanta ilaahay xataa way diidayaan inay ka qaadaan laakiin maxay ka wadaan maxay ula jeedaan sababta maxay tahay maxaa sababi kartaa is leedahay wallahi يعني بين أنا أعمل مارت مقوم ملينا إنه قفك كمرة وسلام أبدو حقولي كرت أبتي السلام عليكم مكو جوابنا أرتكينيا وحواي وإسكا ذكتها نولا أهان لكن خاصة مقالة وين مليرة نيروبي عاصمة dadka way iska duruufaysan yihiin Cabdishakuur laakiin waxay ahayd inay Soomaalidu is caawiyaan ay is garab istaagaan marka ana damaartay yani meesha ku cusubahayno magaalada maarta wallahi saak sawsoo kale 12 hadana waxa la shaqada waxa la isku siiyaa qabiil maxay tiri shaqada qabiil lagu siiyaa qabiil la isku siiyaa waa garab la isku siiyaa qabiilina qabiil maxaad ugu baaqaysaa dadka marka saas leeyihiin qabiilaan isku siiyaan wali ayagoo qurbo wadankooda heen joogin inay qabiil ay ku dhaqmaan maxaa leedahay ana waxa dhaa maarta ilaahay ka baqaan waxaan qabiil faa'iido ma lahan ay iska daayaan ka wali insha Allah waxaan bartamahan kaga jirnaa vloggeeni oo markaas aan idinkaga soo gudbinayno Saydabu Media waxaan hadda sii soconaa ama ku mareynaa suuqa weyn Isli ama xaafada Soomaalida digtay Isli ee gaar ahaan Kamakuj marka hadda dadka oo dhan waxay ku jiraan diyaar garowga munaasabada Ciidul Fidriga insha Allah Cabdishakuur maxaa leedahay hal iyo labo asxaabta ku xiran Saydabu Media maxaa leedahay ninkan uu kala kiciya scrub wax walba u suubiya channel kiis uu kala kiciya ninkan nin fiican waa u jeedin channel kiisna si fiican daawada waa tahay saaxiibayaal intaan oo dhan waxaan u sameeynayna waxay tahay waa sida Cabdishakuur idin sheegay inaan muuqaalo aad u qurux badan idin soo gudbino idinkoo jooga gurigiina waliba marka waa tahay marka halkan jamkeedu waa zaid marka ninka Cabdishakuur la yiraahdo waxaan soo aragnay halkan aqoon hore isku ma lihin
nin halkaan anigoo vlog iska duubanayo isagana iska noloshiisa iska bursanayo soo idin sheegay magaalka uu ku cusub yahay marka insha Allah waxaan u rajaynaynaa Cabdishakuur waxaan ku rajaynaynaa gool wacan insha Allah watahay saaxiibayaal ninka dhalinyarada ahaa wada aragteen runtii dareenkii uu bedelay saad ku aragtaa dabcan wiilkaas dhalinyarada ahaa waxa la yiraahdaa Cabdishakuur aqoon hore u malihi halkaan anigoo muuqaal duway ama vlog duway ayaa waxaan soo aragnay wadadan aan iska dayno saaxiibayaal qabyaalada iyo waxa la yiraahdaa nin jeclaysi aan iska dayno aan iska rab istaagno meel walba aan joogno يا شهر رحمة وريحب بك يا شهر رمضان مبارك قولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها watahay saaxiibayaal ugu dambeyn waxaan soo gaaray suuqa weyn ee markaasi ama moolka weyn ee loo garanayo ama loo yaqaano Bangkok Shopping Mall ayaana jooga suuqan Bangkok waa suuq weyn oo muddo badan dhisan halkani waa isli waana Jam Street dadkoo dhan waxa saa hore idinku soo sheegay waxay ku jiraan diyaar garowga munaasabada Ciidul Fidriga رمضان مبارك قولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن waxaa sikadiisu soo aragnay midaan saaxiibnahay reer Nairobi isla ahaan jirnay waa dadkii hore Maxamed Deeq oo ku magac dheer yahay Maxamed Xasan Jamaal Maxamed Deeq oo ku magac dheer yahay waa nin legend hore aan hore isla soo wada shaqayn jirnay reer Nairobi isla ahaanay Maxamed Deeq waan ku faraxsanahay aragtidaada waa ii sharaf ku soo dhawow marka hore Saydabu Media waa ku dhawaabo ma sha Allah maadaama in muddo aan kala maqneen laakiin waqti waayahan kala geeyay alxamdulillah marka maanta aad ugu faraxsanahay inaan Nairobi ku soo dhaweeyo marka waxaan leeyahay meeshaan gurigaaga camal waa ku soo dhawaado kule waad mahadsantahay Maxamed Deeq halkaan ka shaqeeya harqaan ku ahay habeenkii meeshaan jooga ma sha Allah marka alxamdulillah waana shaqada iska baashaan la roobna daaya kulka ka baxnay deeraan ku jirnaa alxamdulillah roobkii maalin dhibeeda qasaare ayuu geystay maqleen والله الحمد لله نمعه والبحال هاي قصارنا ولده نمعنا إلهي واتقان نمع قصاري دف ولده مركا الحمد لله كله أنت يعني معناها لوق وصدي أيا كبدن إن شاء الله هذا واحد تيجينا صاحب كي حلقة كشقة وحاجة سامبوغن دونا كذاها سوق بانكوك نمري إن شاء الله إن شاء الله أنا كبير سيستو أيام صوت إن شاء الله هذا من نوع صوتها ku faraxsanahay barada waa ii sharaf inaan maanta aan kula kulmo Maxamed Deeq rag asxaabtida xagaas ay ka shaqeeyaan taban ما شاء الله سوق كل سوق لو براي maahan muddo yani soo xamaalaysay kulli baaqo qatqana nin lagu soo dhaweynaa muddo waa sax waa ma sha Allah meeshan asxaabta umara ka bariisan jiray halkaan aad aragtaan واتقانا ما شاء الله halkaan ka bariistaa alxamdulillah marka ma sha Allah waxna maqan malahan alxamdulillah ninkaan injineer Allah waxaan joognaa suuqa weyn ee markaas Bangkok Shopping Mall gudiha ayaa soo galnay waxaan salaamay Stadium Media dhamaan waa salaamantihiin maanta saaxiibkeena meeshaan oo soo booqday waxaan leeyahay iid wanaagsan iidan ku jirnaa wallahi shaqada aad iyo aad biis loo yahay waa 17 dan baa la galayaa oo xilliga khayraasneed marka qof walbana macna dharkiisa iyo wixiisa u diyaarinayna waa qof walbana waxaan jecelnahay inaan si fiican u iido qof walbana macna wixii macna dharkiisa zaad aan loo keenaa ma sha Allah aad iyo aad suuqna kala socotaa ilaa iyo ramadaanka ka dhamaanayso waxaan jecelnahay dadka si wanaagsan inuu u shaqeeyno oo si hufan oo shaqadooda u qaban waxaana macna halkaan ka salaamaya Saydabu Media wallahi suuqa inta ramadaanka la gaaray waxaan xiri jirnay
adiga hal saac ilaa iyo 12 saac iyo bar ayaan ka bixi jirnay laakiin hadda xilliga ramadaanka loo jiraa ilaa iyo 6 saac iyo 7 saac ayaan gaarnaa marmarna habeennimaha ilaa iyo waa bari hata marmaraan gaarnaa رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims all the Quran descends in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة saaxiibayaal masaajidka Al-Hidaaya waan imaanay oo ugu dambeyntii masaajidka Al-Hidaaya waa kaasa waa sidan dhismahan oran aragtaan waa masaajidka weyn ee Al-Hidaaya kale waa kaasa haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fadlan channelka subscribe leh like sar asxaabtaadana la wadaag wixii fikraha qaybta hoose inagu reeb inta aan muuqaal la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh